kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysa kusoo dhawaada barnaamijkeena habeenimo haddaba waa habeenimo jimcaha sabti soo galayo barnaamijkuna waa kii saddexaad qaybihii barnaamijkeedana maanta ugu talagalnay kuwii ugu dambeeyay ayaynu ku jirnaa oo maraynaa waxaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkan qaybtan wararkii soo dhacay intaynu kala maqnayn haddaba warar kala duwan oo ku saabsan xaalada Lubnaan dagaalka dhexmaray Xisbullah iyo Israa'iil iyo xaaladaha ku saabsan Marinbiyoodka Hormuz way noo soo socdaan iyaga ayaan barnaamijka ku faahfaahin doonaa balse waxaa naga xusuusa maanta waxay ahayd maalinimo jimcaha channelkeena YouTube-ka ee Nadaara qisooyinka Nadaara laba waxaanu kusoo gudbin doonaa oo aanu kusoo gudbinayba qisadii aan ugu talagalnay maanta jimcaha haddaba dadka jecel qisooyinka iyaguna halkaas ayay qisada kala socon doonaan waa maasantiin haddaba waxaynu ku bilaabaynaa xaalada Lubnaan waa sidee ka sheekeynayna nimankii in la qararamsaday la eriyaday meydadkoodii iyo waxoodii ay dhibaato ay ku noqotay inay soo qaataan waxa soo dhan hadda marka xaalku waa sidee ilaa galabta soo ahaa horta marka hore waxaan ku hormaraynaa khasaaraha reer Lubnaan soo gaaray Israa'iil diyaaraday qaadatay waxbay duqaysay Soomaa dhimashadu imisay maraysaa haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay 47 qof ayaa ku dhimatay weeraro dhinaca cirka ah oo Israa'iil ay ku qaaday Lubnaan wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan caawa waray soo saartay ayay ku xaqiijisay 47 qof inay dhinteen 97 kalena ay ku dhaawacmeen weeraradii dhinaca cirka ee ay soo qaaday Israa'iil oo ay Lubnaan ku soo qaaday waaya marka hawshaas marka halkaas maraysa khasaarahaas geysteen nimankan xaalkoodu sidaa yahay ninkii Netanyahu ahaa marka ka hadlay iyaguna waxa ay sameeyeen haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay Netanyahu wuxuu sheegay in ciidankiisu ay weerareen ilaa 150 goobood oo ay ku sugnaayeen Xisbullah dhanka Lubnaan haddaba ra'iisul wasaare Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu yiri ciidamadeenu waxay weerareen 150 ka goobood waxaana ku dilnay ayuu leeyahay halkaas 10 qof oo markaa ka tirsan dagaalyahanka Xisbullah ayaynu halka ku dilnay ayuu leeyahay waaya marka wali waxaynu ku jirnaa wararkii arimaha ku saabsanaa 150 goobood aan weerarnay kan waaye dagaalku ma sii soconaa marka ma sii wadi karaa dagaalka Trump iyo kooxdiisu waa xanaaqeen Iran waxay tiri anagu dagaal maartay hawsha sida haday tahay Switzerland iyo meelaha ay wada hadal ma galayno Pakistan walaacay ka muujinaysa maxaa dhacay marka haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinka laga qoray safiirka Israa'iil u fadhiya magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa isaguna goor dhaweyd si rasmi ah u sheegay Israa'iil inay waafaqday inay joojisay amaliyaadkii ama hawlgalladii weerarka ay ka waday Lubnaan haddaba safiirka waxa uu sheegay in hawlgalka Israa'iil uu joogsaday 11 iyo barkii barqanimo ayuu maartay weerarkaasi uu joogsaday haddii Xisbullah ay iyaduna joogtayso xabad joojinta marka annaguna wax weerar dambe Lubnaan kuma qaadi doono ayuu dhahay waa safiirka Israa'iil u fadhiya Washington macnaha Trump iyo kooxdiisa madaxa loo salaaxaya markii ay diyaarada inta qaateen wax walba garaaceen oo heshiiskii dhan wareer galay ee waxay leeyihiin waa joojina dagaalka waxaan ka xanaaqnay nimankaasaan yaa gardarnaa marka la isku haya Xisbullah waxay anagu waxa aan dhibaato u geysanay nimankan male iyagaana soo aaday inta taangiye soo qaateen iyagaana soo weeraray markaas ka dhicinay dagaalka xaqu ka dhacay meel ay hore u joogeen Israa'iil miya mise meel ay soo galeen waxa la ogaaday meel ay Israa'iil soo gashay inay tahay meesha dagaalku ka dhacay marka yaa qaldan cid ka hadlaysa male Mareykanka oo dhahay Israa'iil waa qaldan tahay adiga hawsa sameey ma jirto hadii laakiin Xisbullah xadgudubkaas iyadoo ay sameyn lahayd waa la isla qaylin lahaa waaya Israa'iil marka maxaa ka xanaajiyay oo weerarka diyaaradaha u qaadatay oo ay wax walba u garaacday waa la qararamsaday maanta si fiican loo dubtay waxa la yaab lahayd
warbaahintoodii caawa waxay qorayaan waxay leeyihiin ayagu hadayso afar dhimatayna ma dhihin afarta hal taangi ku dhinteen hal taangi oo la gubay ayay sidii steegi oo kale halka ugu bislaadeen macnaha steegi oo kale loo dubay taangiga gudihiisa ku shilmeen kuwa kale marka waa hal taangi gudihiisa afar ku dhimatay sarkaal iyo 3 askari oo la socod taangigoodii gantaal garabka laga garo oo halis badan inta lala helay ayuu dhalaalay isaga dhan nimankii markaa iyagu halkaa koostaata ku noqday iyo mistake maad ayaa laga soo saaray haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyay hay-adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa caawa cadaysay gantaal xisbullaahi ay rideen in markaa ay ku dhinteen 3 sarkaal iyo 3 askari oo ku dhex jiray dabaabad ama taangi ku dhex jiray hay-adda wararka u faafisa Israa'iil waxay tiri xaqiijin aynu sameeynay waxaynu ogaanay in xisbullah ay gantaalka garabka laga gano la heshay taangi ay ku jireen sarkaal iyo 3 sarkaal iyo 3 ciidana waxaana afartoodiiba halka ayay ku dhinteen oo ay ku shiilmeen la leeyahay halkaas lagu shiilay nimankii marka afar hal taangi kaliya ku dhimad waa tii marka xisbullah ay baatalayd waribaka waxay rabaan sheegtaan iska baxa warkooda ka bax ilaa hadda meedkoodii guranayeen Allah marka sheekadaas marka iyadana wararkii soo kordhay ayay ka mid tahay waayahay marka maxaa kaloo soo kordhay saacadihii la soo dhaafay Iran iyo Pakistan way wada hadleen wasiirka arrimaha dibadda Iran iyo midka Pakistan kii Iran wuxuu yiri Pakistan dhexdhexaadiyaal ahaydeen heshiiska waxaanu ku heshiinaa anaga iyo Trump kullul jabahat macnaha dhan kasta furin kasta in dagaalka laga joojiyo xabadda la joojiyo Israa'iil waa arkaysaan maanta diyaarada inta qaadatay Lebanon weerartay sababtay u weerartay ma noo sheegi kartiin heshiiska aan galnay si muxuu yahay walaa cawayd la qabnaa dheen Pakistan Mareykankana waa u gudbinay inay Israa'iil iyadoo jabisay xabad joojinta hadda anagu waa u gudbinay kaliya marna dheh anagu xarna wax cad hal la heshiiyo waa naqaan hal la dagaalamana waa naqaanay dheh laakiin munaafaqad kale ma ka sheedhanay Israa'iil marka la day alaabtaan oo kala bilowdo hadda anaguna de shaqadeena qabsanayna haddaba telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay walaac ayaa waxa uu ka taagan yahay Pakistan iyo Iran walaac ayay ka muujiyeen xabad joojinta ay ku xadgudubtay Israa'iil oo markaa Lebanon xabad joojintii ka jirtay ayay ku xadgudubtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan waxay si cad u sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ninka la yiraahdo Mohammed Ishaq Dar iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ay wada hadleen ayna isku sheegeen waxa jira iyo Israa'iil inay toos ugu xadgudubtay xabad joojintii ka jirtay halka marka xalku halkaas uu marayaa marka wararkaas ugu waaweyn dhanka marka waxaanu u weecanaynaa Hormuz imankii Iraniinta waxay leeyihiin markab aynaan annaga u tilmaamin meeshuu marayo yuusan isku gudbin waa wada gudbaysaan laakiin meeshu meel caadiya maaha waa tii la yidhi 2,000 ilaa 6,000 oo miinooyin meesha ku aasan marka meeshii laydin idmadaa maraysaa laakiin ninkii hadhow madax adeeg keena meeshuu raba iska maraa oo baashu la kacdo asagay u taallaa markaas nin walba jarayna annaga tee marna xagga mar doontaa yartaa raac xagga mar saasaa lagu wadaa iyaduna 11 markab oo saas shidaal uga yahay malaayiin barmiil oo fuusto oo shidaal ayay marsiisatay wax kasta dhici kara horta kuwaas iib geyso waaye Chinese iyo dhulkaan iyo dadkii ay wax siin jirto dhan hal mar ay u daldashay haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyay arikaas wargeyska la yiraahdo Bloomberg ee ka soo baxa Mareykanka wuxuu leeyahay 11 maraakiibta waaweyn ee shidaalka qaada ayaa waxay ka shiraacdeen dekada la yiraahdo Tashabhar ee dalka Iran
wakaaladaas Bloomberg la yiraahdo dhanka wararka Mareykanka waxay leedahay waxay wadeen 20 milyan oo barmiil oo shidaal ah ayaa maraakiibtaas qaarkood ay markaa wadeen waxaana ay ka gudbeen marinbiyoodka Hormuz ayagoo u sii socda koonfur bari iyagoo ka baxay dhanka koonfur bari ee Iran oo markaa adduunka aaday marka halkaasay marka shidaalkeedii Iran halkaasay marka ay geysatay waaye marka Hormuz isaguna wararkaas ayaa ka soo kordhay saacadihii la soo dhaafay marka waxa leeyahay si tartiib ahna maraakiibtu way u socdaan waxay yiraahdaan si oo tartiib ay maraakiibtu u soconayaan sababtoo markab kasta inta soo sheelaraysto iskama mari karo meesha de waa meel lagu dagaalamay miinooyin badan daadsan wax badan meesha jira weli heshiis fiican lama gaarin heshiisku hal lagu ku taagan yahay marka meeshaas waxa qof walba iska baro suuragal ba marka heshiiskiina waa la fulinayaa maraakiibtii 60 maalmood wax canshuur la weydiinayo male laakiin canshuur ma lidin weydiinaye xafiiskan soo waca xafiiskaas inay qabatimaan la rabaa 60 bari kadib canshuurta meesha ku dhiibi lahayn waay marka dhawaga Iiraaniyiinta maartay nin iska soco kara baleedeen markab kasto meesha maraya hay'ad waxaan u sameeynay la socodka maraakiibta maraysa Hormuz meeshaas la xiriirey hadda marka waa free lacag la'aan ku maraysa Soomaa way ku hagaysaa hadhow 60 maalmood kadib marka soo laabatid waa keenaysa lacagta dhiibeysa marka hay'adda marka waa la baraa maraakiibta iyo nimanka wada iyo ayaa la baraa shirkadaas kale maraakiibta inay hay'adda isla macaamilaan barnaamijkayga caawa waa naga intaa balse waxaan idin xusuusinayaa asxaabay inaynu markaa soo gelinay channelkeena kale qisooyinka